haweenka abeel kamid ah beelaha dega magaalada Gaarisa ayaa caleema saareen haweenay ugaasada taasoo mathali doonto danta guud ee beeshaasi. Ugaasad Sami ayaa noqotay haweenaydii ugu horeysay oo loo caleema saaro ugaasnimo, taasi oo ay soo dhaweeyeen odayaasha beeshaasi. waxay ka tashadeen ayagoo mid ah inay is caleema saaraan, guddi qabsadaan, mideeyo waxay gaar uga socdaan ma jiro tolka kamid yihiin, awadaaqi kamid yihiin, ogaadeen kamid yihiin, Soomaaliya kamid yihiin. waxay diyaar u yihiin inay danta tolaad ay diyaar u yihiin haddii aydan qabsanayeen haddii tol wax u qabanayeen inay diyaar noqdaan oo iskaalmeystaan oo walaal noqdaan oo wax imaado dib iyo dheefba inay qaybsadaan bay u midoobeen. jirkan waxaa iskale dumarka Qaasil Cabdikariim baa iskale, annagana waynugu casuuman waynoogu yeerteen, annagana waa ku waafaqnay raalli baan ku noqonnay. wax alla wixii dantooda oo danta Qaasil Cabdikariim oo midnimo iyo muwaafaqo iyo wadajir yay iskugu imaadeen. annagana midaasaan yaan ku waafaqnay oo raalli aan ka nahay. wax alla wixii tolka dhaqankiisa inay ku dadaalaan baan annagana raalli ka nahay. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay caleema saarkani ayaa sheegay in olojeedada xafladani ay tahay mideynta haweenka ayna tusaale u noqon doonto haweenka kale ee ku dhaqan ismaamulka Gaarisa. ugaasada maanta aan caleema saarnay waxaa la dhaasmay Axmed Haruun, waa maamada bilcaanta Qaasil Cabdikariim aan madax uga dhignay. annaga oo 9 oo iyada ay 10 nagu tahayna waan la shaqaynaynaa. waxaan u caleema saarnay midnimo Qaasil. wax xumaan aan wadno malahan, waxaan wax u dhimayno malahan. indii uu ku jiraa, gafana uu ku jiraa, sanata uu ku jiraa, umirab uu ku jiraa, maxay ahaaday MCA wax walba ku jiraa. wax hadda aan raadinayno ama siyaasad aan u socono ma jirto, tu dambana lama gaarin. midnimo Qaasil baan muujinaynaa. سمي أحمد هارون أنا على مسألة من ماذا قاسم بان كهلين، من ماذا قاسم بان كهلين، قاسم من ما ويلم وكلا الصعدة لا تسكو هجاكسن معه ولا لك شلع عن صدورنا أما بيها هذا أما قفنا هذا أما قبرها هاتو نن ما أنت نعقونسن أو واحدا أو وطقنا وإحنا هجاجين ملح لكن هذا هالكون هاي ردنا نرى بلقلها بالعان تقاسن عبد الكريم بيرد تاجن كفر ماله هل يلا بيسدح الله دومن تعال كتشنا maamadan maanta la doorto waxa uu doorana Qaasin dibka uu qabo, qaaraanka uu qabo, diinka uu qabo. maamadina ma taleeynayto ana kabloon wax kama qabna ma dhaayna aad waan qabna waana badanha maxabad isku sheegi. maamadan waxa uu doorana anaga dibka aan qabnayno mudasho. ugu dambeyntii ugaasada ayaa ka hadashay madasha, taasi oo u mahad celisay dhammaan dadkii ka soo qayb galay caleema saarka oo sheegtay haweenkii ka soo qayb galay xafladani in midnimada lagu dadaalo. magacayga waxa la dhahaa Sami Axmed Haruun, waxaan deganahay Gaarisa County. waxaan isku caleema saaray midnimo iyo walaalnimo iyo umoja. walaalnimo wax u dhimayna ma laho, nima wax u qabna ma laho. beesho kala daasanaad imaan isku aruursanaynay inaan anagoo uur faraxsan aan walaal aan ahaano oo aan umoja muujino baan rabnay. nin aan wax u qabna ma laha. dawladda way dhisan tahay, wax alla wixii laga doonayo baan ka doonaynaa. walaalahayna waxaan ka tagano baan ka sugahaynaa. wax xun oo annaga qabno oo xumaan oo maanta aan xalfadan u dhigana malaha. si kastaba ha ahaatee waa markii ugu horeysay haweenay loo caleema saaro ugaasnimo, waxayna arrinkani la yaab la noqotay bulshada ku dhaqan magaalada Gaarisa. Maxamed Mooge, warbaahinta Star, magaalada Gaarisa.